waxaan horta aad ugu faraxsanahay maanta oo ah maalintii beeralayda Soomaaliyeed iyo bariyo ah maalinta cuntada adduunka in aan ku faraxsanahay ka soo qaybgalkii maantana ay sharaf ii tahay sidoo kale inaan halkan furo meeshan wasaaradda beeraha taariikh gaar ah ay igu leedahay haddaan idin sheego waxa kamid ah 1990kii waxaan dhiganayay jaamacadda ummadda kulliyadda injineeriya teesahaygii ugu horreeyay wuxuu ahaa webiga maro degmada Jannaale ayaa waxay ku saabsaneed in loo sameeyo mini maxaa la dhahaa dam oo biyo xireen yar kaasoo la rabo in maxaa la dhahaa degmada waxay lahayd bridge loo sameeyo mini hydraulic oo koronto dhalin yar loo sameeyo oo ku filan degmada iyo degmooyinka u xigo waxaan xasuustaa qolkaas geeska xigo inuu ahaa qolkii aan ku shaqayn jiray waagaas khubaro oo waxaa joogtay Chinese ah waxaan kaloo hayaa markii la rabo in la sameeyo maxaa la dhahaa biyo xireen waxaa loo baahan yahay in aad ogaatid biyaha halkaas mari jiray muddadii ugu dambeysay 30 sano ahayd ka soo bilow 60meeyadii 70meeyadii iyo 80meeyadii akhirkeeda ayaan waxaan hayaa haddana gurigayga yaallo boortaatada ama faluudka maro webiga ee Jannaale taasoo cadeyn u ah taasoo noo ahayd maxaa la dhahaa halbeega aan ku salayn lahayn biyaha halkaas marayo koronto ma laga dhalin karaa mise ma laga dhalin karo buugaasna waa hayaa taasna taariikh gooni ay tahay markii wasaaraddan loo fiiriyo waxaan kaloo xusayaa in furitaanka wasaaraddan oo ku soo beegay markii ugu dambeysay oo wasaaraddan aan ka tago kadibna burburkii ku dhacay maantana waxaa farxad ah inaan wasaaraddii aan ka tagay waaga inaan dib u furo xaqiiqdii waagaas dawladdii kacanka waxay xoog saartay in beeralayda gacan la siiyo si uu wax soo saarka u kordho dadkii khubarada ahaa oo hadda anigu ugu horeeyo ku duqoobay wasaaraddan waxaan ka rajaynayaa inay dib u soo noqdaan aqoontoodii farsamada aqoontoodii maxaa la dhahaa wax soo saarka dadka shabeelooyinka iyo jubbooyinka ku leh beeraha gacan lagu siiyo oo la siiyo tababaro si ay wax u soo saartaan